بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقعيق waa Nuurdi Cabdirasaaq Maxamed. YouTube keenana waa Nuurdi Cabdirasaaq. kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta barnaamijkeen wuxuu ku saabsan yahay guurka Soomaaliduna ay dayaceen. waxaa ka codsanayaa fiidiyoga inaad like inoo saarto aad nala wadaagto wixii ra'yigaaga ah. ugu horeyntii waxaa faham u baahan ereyga guurka waa isku lamaaneyn si sharci ah laba qofood lab iyo dhidig. guurku waa isku lamaaneyn si sharci ah laba qofood oo lab iyo dhidig kala ah. macnaha guurka laga leeyahay wuxuu yahay ka tegid nolol kelinimo ah u guurid nolol lamaane oo barwaaqaysan. xagga diinta islaamka guurka aad buu ugu amaanan yahay. diintu waxay faraysaa dadka gaareen awoodaana in ay guursadaan. su-aasha ayaa waxay tahay inaan guursado ayaan rabaa, maxaa talo ah? horta kow waa inaad xasuusnaataa inaad wajahayso hawl adag. hawsha ugu culus ee qof u istaago waa guurku wuxuu la yimaadaa mas-uuliyad culus oo aan ka ahayn waan ku jecelahay, anaa kaa daran, hadiyad siin, habeene badan, dhafar, faloowar siin, iyo ilaahay subxaanahu watacaala nimcado idin siiyey inaad ku raaxaysataan. intaas wuu ka balaaran yahay. waxaan sidaas u dhahayaa awlaad ayaa imaanayso, waxayna kaa sugayaan korin iyo tarbiyad wanaagsan. xaaskaaga marmar bay kugu kacaysaa. waad og tahay dumarku feer qaloocan bay ka samaysan yihiin. marmar fara badan ayaa lagu xagxaganayaa, lagu cunayaa, aadan garanaynin meel lagaala qaaday. haddaad leedahay dulqaad fara badan ama inta aadan guursan ka hor ay xisaabta kugu jirtay in aad u samrayso xaaskaaga biidnillaahi tabaaraka watacaala, gurigaaga wuxuu noqonayaa mid degan, xasiloon oo maasha allah. sabab baa jirta oo ilaahay ragga ugu dhiibay furiinka, sababtaasna waa dulqaad. dulqaadka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood: dulqaad loo dulqaadan karo iyo dulqaad aanan loo dulqaadan karin. dulqaadka aanan loo dulqaadan karin ayaa wuxuu yahay gabadhu inay taqaano soo dhixid, wareeg, baashaal iyo waxyaaba noocaas oo kale. hadday gabadha taqaano khatar ayaa kaa imaan karto, loomana dulqaadan karo. dulqaadka gabadha loo dulqaadan karo ayaa wuxuu yahay gabadhu inay ku jirto maalmo iyadu ay leedahay. waxaa lagaa doonayaa inaad maalmahaas u dulqaadato. maalmahaas haddii lagu dhibayo, lagu xagxaganayo, lagu qeylinayo, taas waa inaad u dulqaadataa, sababtoo ah ilaahay baa kaa dhigay odayga guriga ama mas-uulka guriga ama qofka ka mas-uulka ahay qoyskaas. inta badan dadka hadda isguursanayo waxba uma diyaarsana. guri ayay wada galaan, kadib dareenkii riixayay markay soo gutaan, muddo isla joogaan oo ay dulqaad muddo isla joogaan oo qalalaad yaryar dhacaan, waxay ugu muuqataa buuro waaweyn. kadib isfahan waa la kala tegayaa. maalmo kadib waxaad maqlaysaa labadii way kala tageen. maxaa sababay? kuwii isjeclaayeen oo la kala reebi waayey soomaa ahayn. ebalkii hore waxaa qaldamay fahanka guurka laga haystay markii hore. waxaan kugu dardaarmayaa walaasheedii ama walaalkeegiio xulo oo ku xasid xaas xilkas ah. walaasheedii xulo xaaji ku xamaalo. alla subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa guriyeen inuu noo hagaajiyo, kuweena iyo kuwa naga dambeeya iyo kuwa naga horeeyanba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.